sida la socotaan dalkeena Soomaaliya in muddaahaba waxa haystay dhibaato aad u weyn oo dawlad dhiska aan la tacaalaynay waxyaabaha aan la tacaalaynay waxa ugu weyn in dalka uu saaran yahay xanibaad dhinaca hubka ah waxaan ognahay muddadaas dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed ay la dagaalamayeen argagixisadu dhibaatadaas si shakhsi ah iyo si qaran ah way noo taabatay dawladda Soomaaliyeed sanadadii ugu dambeeyay waxay aad ugu dadaashay in ay maareyso gacmaha hubka ay ku dhacayaan oo ay soo gaarayaan ciidamadu waxay sameeyeen iyo dawladduba guud ahaan iyo wasaaraduhu ku shaqada leh amniga iyo xafiiska madaxweynaha in maamulka hubka uu noqdo mid hufan dhibaatada argagixisada la dirirka naga haysato ugu weyn waxa ugu muhiimsan inaanan haysan hub ku filan ciidamada Soomaaliyeed oo ay kula diriri karaan ayna maaragtaa ku xaqiijin karaan amniga qaranka sida daraadeed beesha caalamka inta hadda nala joogta inta naga maqan waxaan ugu baaqaynaa in xayiraadda hubka ee Soomaaliya saaran ay maaragtaa il gaar ah loo eego si gaar ah loo maaragtaa loo fiiriyo iyadoo la eegayo daafurnaanta iyo maaragtaa hanaanka dawladda Soomaaliyeed ay ku xaqiijisay inay hubkeeda maamulato waxaana la ogaan karaa dawlad intaan soo rafanaysay lana diriraysay argagixisay intaas leeg kulana diriraysay hub kooban oo ah inta ay iyaguba haystaan farqiga waa inuu farqi loo dhaxeeyo dawladda iyo argagixisadu waa inuu farqi u dhaxeeyo marka laga eegayo dhinaca la dagaalanka maaragtaa ciidamadu ay la dirirayaan marka waxaan codsanaynaa in il gaara lagu hayo si gaara maaragtaa looga warqabo hay'adaha quseeya oo maaragtaa maanta qaab ka mid ah meesha ay fadhiyaan in si maaragtaa muhiimadeedii leh ay noogu garabsiiyaan inaan maaragtaa xaaladaas ka gudubno Soomaaliya hadaanan laga qaadin cunaqabateynta argagixisada Soomaaliya ay joogto oo heerka caalamiga ah in laga adkaado way sii adkaanaysaa sidaa daraadeed ciidamada geesiyaasha ah oo naftooda horeyaasha ah fursad ha loo siiyo inay helaan hubkii ay u baahnaayeen waa mahadsantiin